kulanti wacan oo wanaagsan dhammaanba akhyaarta sharafta leh ku soo dhawaada barnaamijkeennii sheeko yaab leh. sheekadeennu maanta waxay ku saabsan tahay nin si kama ah ama si aan ula kas ahayn u garaacay sodogii. berberyaha ka mid ah ayaa waxaa dhacday nin reer miyi ah ayaa reerkiisii ka safray muddo dheer. markii uu ka maqnaa ayaa uu maalintii dambe war looga keenay reerkii, waxaana loo sheegay inuu reerka fiicnaa, meeshiina ay ka guureen oo ay degeen meel heblaayo oo daaqsin leh oo dhul roobaad ah, dhulkiina barwaaqo ayuu ahaa ayaa lagu yidhi. wuxuu maalinba war la siiyaba maalintii dambe ayaa uu damcay inuu ku noqdo reerkiisii, waxa uu soo socdaba waxa uu soo gaadhay reerkiisii. reerkiina waxaaba socdaal ku soo maray oo ku soo hoyday xaaskiisa, aabbaheed iyo hooyadeed oo wada socda. gabadhii gurigii ayay u bannaysay hooyadeed iyo aabbaheed. ninkii oo muddo soo socday ayaa reerkii soo gaadhay goor saq dhexe ah, waxaana uu soo istaagay duleedka reerka. naaheblaayoy ayuu yidhi isagoo xaaskiisa u dhawaaqaya, laakiin maba ay joogine gurigiina aabbaheed iyo hooyadeed baaba hurda. waxaanu isagoo ordaya soo galay gurigii, mise waaba laba ruux oo gogashii hurda. inta aanu waxbaba eegin ayuu sodogii ama gabadha aabbaheed bud ku garaacay. ceeb baa ka dhacday. waar maxaa gurigayga ku keenay isaga oo u haysta nin? qaylada ayaa isgaadhay. gabadhii ordaysa ayaa soo gashay gurigii oo ku dhawaaqaysa, waar waa aabbahay. ninkii inta uu naxay ayaa uu arkay inuu sodogii iyo sodohdii guriga joogaan, ninkii uu dilayna uu yahay sodogii. ceebay tacaala, halkaana ceeb ayaa ninkii ka raacday, waxaana loo bixiyey sodogii garaace. waa hagaag, intaa waxaan kusoo koobaynaa sheekadeennii sheeko yaab leh. waa sheekadayno xigta.